fadhiya iyo dadka kale ee qiimaha badan ee halkan jooga. horta arrintan ku saabsan mawduucu ku saabsan yahay ee ah been abuurka iyo saameynta uu amniga ku leeyahay wuxuu ka mid yahay mawaadiic ballaaran oo maalmihii lasoo dhaafay hay-ado kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed ka tirsan iyo bulshadu ay ku wada hadlayeen. tobankii beriye lasoo dhaafay wasaarado badan, wasaaradda dhalinyarada, wasaaradda haweenka, hay-ado kala duwan oo doodo noocaan yeeshay. doodahan oo dhan salkooduna wuxuu ku saabsan yahay xaqiiqo iyo khatar soo daahirtay oo u baahan in lagu baraarugo oo la maareeyo, taasoo guud ahaanteed hoos imaanaysa ciwaanka ah si xun u isticmaalka warbaahinta, gaar ahaan warbaahinta baraha bulshada. halkaas ay qadiyadani hoos imaanaysaa, waxayna ku salaysan tahay oo ay ka timid wasaaradda warfaafinta iyo hay-ado kale badan oo dowladda ah. xog ururin iyo daraasaad muddo badan la sameynayay bilihii dambe. walaacan waqti hadda dhowr sana waa soo jiray, laakiin markii hore wuxuu ku ekaa hadal. hadda toddobaadyadii dambe iyo bilihii dambe waxaa soo baxay in xaaladii ka taagneyd baraha bulshada si xun isticmaalka ahayd ay u gudubtay in ay ficil isku beddesho, in ay ka dhashaan natiijooyin keenay dagaal, natiijooyin keenay dhimasho, natiijooyin keenay saameyn bulsho oo soo daahirtay. taasaan marka dowlad ahaan markaan aragnaa waxaan ku qasbanaanay bal inaan bulshadii muxuu ahaa indhaheedii iyo dowlad ahaan aan iswarsanno oo aan isbaraarujinno oo aan arrintaa isku baraarujinno. waxaan kaloo rabaa inaan wax yar caddeeyo arrintan. marar badan waxaa laga yaabaa dad badan inay isku qaldaan xorriyadda iyo warbaahinta xirfadlaha ah ee professionalka ee sharciga ku shaqaysa iyo waxa aan ka hadlayno ee aan u jeedno ee ah suuqaan iska furan ee qof kasta uu ku jiro, qof kasta ay awoodda u leeyahay. inaan aad soo gaabiyaan isku dayi doonaa. marka runtii dowlad ahaan waxaan yaqiinsannahay oo aan ammaan iyo bogaadin u haynaa warbaahinta Soomaaliyeed. waxaan sidoo kaleeto yaqiinsannahay dad aad u badan oo baraha bulshada ku jira oo qaar badan oo ka mid ah halkan ay joogaan inay wax aad iyo aad iyo aad u weyn oo ah faa'iido aan hore loo haysan ay soo kordhisay, muxuu ahaa keenista arrintan ay soo kordhisay. marka intaas waa caddayn. haddaan su-aasha saaxiibkay dhowro u imaado, arrintan runtii saameynta bulsho ee taban ee ay yeelatay markaan dhinaca taban ka eegno, dadka aan ka hadlaynahina ay yihiin dadkaas khayru mas-uulka ah ee sida qaldan u isticmaalaya platformkan. 3 waxyaabood ayaan kusoo koobayaa waxyaabaha anaga aan hadda degdeg u aragnay. mid waxay tahay colaado qabaa'ilka Soomaaliyeed xasarado waa ka jiri jireen, dagaallo waa ka jiri jireen, waa isdili jireen, waqti badan ay soo socoto. laakiin hadda waxaa soo daahiray in wixii dadkii loo caadiyeeyo, wax caadi ah oo xalaala in looga dhigo. taas keliya maahana waxaa lagu soo daray abaabulka heerka laga yaabay markii hore in jufadu meesha yaroo ay degan tahay labadii jufoo dagaalamaysa keliya in mushkiladu ayaga ay ku ekayd. hadda inay kor u kacday oo kumanaan dad ah hal mar ay gaarayso, oo tuulooyin la gubayo lasoo duubayo, oo qof la dilaayo, dad la dilaayo laleeyahay reer hebel oo reer hebel dilaayo maaragtay ay lasoo duubayo, oo dadku ay dhowran jirtay dumarkii iyo dhalinyaradii iyo dadkii ka midka ahaa iyo culimmadii, dad badan oo ka mid oo magacoodii sheeganaya lagu miraayo. taasi marka waxay noqotay dhibaato weyn oo xagga qabiilka ah. arrinta labaad waxay tahay ficillo ashkhaasa oo dadka noloshooda guryahooda ka dhex dhacayo, yacni qoysas isku dhacayo, dhalinyaro isku dhacayso, dad xaafada ah. waxaad la socotiin xaaladii la dhihi jiray ciyaal weerada markaan baaris badan la sameeyo, dabagal badan la sameeyey, qayb badan oo ka mid ah waxaa la ogaaday in abaabul ka dhacay social media inuu saameyn badan ku lahaa. dhalinyaro isdishay, maaragtay foorjaysay, muuqaallo iska duubtay, dhibaatooyin isku geysatay. arrimaha shaksiga oo qoysaska ka dhex dhaca, nin iyo xaaskiisa, hooyo iyo ilmaheeda, aabba iyo deriskiisa, xaaladaha noocaas oo haddii yacni 2 qof ay dirirto marka waxaa lumay wax alla wixii dadka kala celin lahaa oo laga xishoo jiro oo dhani meeshaanay yimaadeen. marxaladaasina waa marxaladda labaad oo ah qabiilna ma aha, siyaasadna ma aha, waa hab bulsho waay. midda saddexaad ee mushkiladda kaloo weyn abuurta waxay tahay xasarado amniga guud saameyn ku yeeshay oo ah xaalado laga yaabo inay meel ka dhacaan oo inta la buunbuuniyo oo si khayru mas-uulnimo loo qaadqaado oo si khayru mas-uulnimo loo sheego, meelo dadkii laga abaabulo oo laga kiciyo inay noqoto in argagixisada iyo dadka la midka ah ay dadku abaabulaan oo intuu qofku social media soo fariisto uu dhaho qof hebel aan rabaa inaan dilno.
ama qof hebel aan dilaynaa waa aragteen gabdho qoryeysita oo idaacadaha fadhiya oo le waxaan rabnaa inaan madaxweynaha dilno kuwale waa aragteen kuwale waxaan rabnaa inaan boqolaal qof oo dilno maalin kadib haddii kiisas maxkamadaha ka dhacay oo reer leeyihiin dad reeraysan ay leeyihiin haddii qofkeena la dilo 300 oo qofoodaan dilaynaa يعني waxaas oo dhan ficilo noloshii dadka si toos ah u taabtay oo saameyn keenay waay kelimada marka ugu dambayso iyaduna runtii muhiim ah oo aan tan ka fogeyn waxay tahay kala saarista hardanka siyaasiga oo wax bannaan ah in siyaasadda laga wada hadlo oo laga doodo oo la isdhaliilo oo aragtiyada la kala sheego iyo in erayada la isticmaalayo la miisaamo oo aan meeshaas loo isticmaalin kicin reer hebelow soo baxa deegaan hebelow soo baxa يعني حالadaha noocaas oo kaleeta oo iyaga laftirkooda dad badan oo siyaasadda ku jira oo laga yaabo inay ama dana siyaasadeed motivate gareynayaan ama dana deegaan ay wadaan ama masaalix kaleeta ay wadaan inay iyaduna ay waxaynayso marka cabirku halkaas uu ka yimid waxaan u aragnay marka daawada ugu weyn inay tahay dadka maskaxda in laga dhiso mujtamac ahaan inaan u wada hadalno dawladda iyo dadweyne kadibna inaan arrintaas aragtideeda aan isla soo dhaweyno iyadoo dabcan aan meesha laga saaraynin